waa qaybtii saddexaad ee taxanaha afmeer iyo qaybihii kale ee shabakadii uu horjoogaha u ahaa Faysal Gujis ee dilalka madax jebinta ahaa u qaabilsanaa argagixisada Al-Shabaab waqooyiga magaalada Gaalkacyo. qaybtii hore waxaa sheekadu ku ekay dilaagii isboortiska ahaa, balse qaybtan saddexaad waxa aan ku soo qaadan doonaa sheekada arxalnaawe aan ka absokoyn Faysal Gujis haddiiba uusan ka darnayn aqoon ahaan, diin iyo maadi mid uu ku tooron yahay ma jirto. waa Sahal Cabdullaahi Jaamac oo sanadkii 2008 u argagixisada Al-Shabaab ku soo daray Maxamed Xasan Cawka Jeeri, atoorihii 13 sano maskaxda u ahaa dilalka madax jebinta iyo qaraxyada waqooyiga magaalada Gaalkacyo. oraha tirabeelo macno ma keento, aan ogaana Sahal iyo waayihiisii xasuuqa bulshada magaalada Gaalkacyo. bismillaahi rahmaani rahiim. anigu waa Sahal Cabdullaahi Maxamed oo ku dhashay magaalada Galmudug oo kuna barbaaray magaalada Gaalkacyo ilaa bacdin ilaa Gaalkacyo. waxbarashadeedu waxbarasho saaf ma galin ilaa waxa quraanka waxaan bartay ilaa juska saddexaad ilaa tabaarak waan bartay. laakiin waxa kale waxbarasho kale aan ma galin oo farta Soomaaliga. quraanka ma dhameeyo waxa gaaray ilaa juska saddexaad ilaa tabaarak. la gaaraa diinta kale wali ma saa uma baran wax ku too marana. gormaad Al-Shabaab kan noqotay waxaa ka mid noqday 2008 oo ninkii la yiraahdo Jeeri Amirkeena uu tashkiiriyay aduu ilaa muddo 5 beriya uu tashkiirinay kadib tashkiirintu waqaat sidee ku qaaday tashkiirin maxaa ka mid ah waxyaabo aduu tashkiirin anigu soo biiday inaan wax kala shaqeystay inaan baak hayaan ku yiri sidii baan la shaqeeyay marka waxaad iga jawaabtaa nin weyn adoo ah 2008 intee sana jirtay waxaan jiray 16 hadda laba jira hadana soddon laba jira way qof shabaab kamid noqo af Soomaali ma ahan waxa ku aqbasho ku bedelatin al-shabaab noqotay adigu tashkiil waxyaalo badan buu noo sheegay in lacag badan siinayo kadib markaan ku soo biirnayna oo diliga aan geysanayna in lacagiyo uu noo sheegay laga naaquso adigu lacag adigu $1,000 ilaa $2,000 ونو شيء على الدل مسبشي على بشي ونو شيء صنبه دور ما marka gacanta deystaan lacag inta 2,000 baan la siinayaa marka dambana waa isroogay lacagaydi yar aan siin jiray markii shaqada shaqada ka baxdaan idinka la diliyay lacagta ma ahana wax kale oo ninkaas ay isticmaal hadday noqon lahayd madiida ama sixir ama wixii cabsiyo utno hada marka ay amal oo kale marka utoo ila diin oo hawlgalba fulinaysa utoo amal wuxuu leeyahay howsha fulinaysa marka abaarka in taago abaar kadib anigu waxaan arkayaa biskoolada qaatay howsha fuliyay wallahi niyo u sameeyay jiray haddaan baaro maxasto laakiin anoo raalika u dirjay waxa iga su'aala dil markii lagu dhaho qof soo dilbay fulin jiray sax taabada dil qoran laha isqax xasan laha jeer qoran laha caaw ila isqax dalgaana jaakad lagu xiro isqax lagu dhaho qaraxa nin qarax loo toobaray in madax jibis loo toobaray kala yihiin qof ismiidaanaya ka hadlay waxaan toobar weydeen waxaan toobar baa loo soo baray sagal ma hebel oo caaw baasan qaado or soo qarxi ma waxaan u baahan tahay in tashkiilad hadana si libro kale dood si loo qof loo dood si libro kale qofka loo barayaa hadii lagu baran lahaa jeer waxa tii anoo xanaaqsan baa u imaanaya wax marka uu imaado horan xanaaq waa ilaaway bastoolada hore ka qaadanaya Soomaa taa bedelkeeda haduu jeer jaakad ku xilaa was qarxin lahayd Soomaa markaas de tababarkayga maaha waxaan tababarkayga asaab ii direemay waxaan oo jeedeen asaab ii direemay oo nin u gaara u dirsanaya oo yaqaanaysa aduu hadda waxa tahay nin wariya Soomaa aduu wariya aduu yaado shaqo kala ku haya maanta kici oo xamaali amala ma ka xamaal shaqada barashooyinka ma Soomaa ma taas kale way ururka argagixisada Al-Shabaab waxay mar walba dadka caamada ah u muujiyaan in ay yihiin kuwa u hoggaansan amarada Ilaahay. waxay mar walba iska dhigaan kuwa fisqigu ka xariman yahay, balse taxanaha afmeer ayaa daaha ka faydaya sirta iyo beenta argagixisada Al-Shabaab ay dadka ku maran habaabiyaan. 90% dadka argagixisada Al-Shabaab ka tirsan barnaamijka afmeer waxa uu ogaaday inay yihiin kuwa isticmaala nooc walba oo mukhaadaraad ah ama balwad ah.
waa kan Sahal oo arrintaasi ii makhraati furaya isagoo weliba dhoolla caddaynaya waxaa kaloo uu iiga warramayaa mawjado kale oo sheekadiisa xag jirnimo la xiriira balwad maxaa leedahay balwad ayuu nooc xaqale sigaar ko qaad ee xashad badeecad sadaqatas iyo baashaan John Walker kaliya ya ko iyo kullaha soo taqaana adigu ma cabto weelata hay sadaqatas waa cabtaa waa ka goorma qalatina shaqada ya goorma qalatina shaqada adigu shambiri 2008 adigu 2007 dhamaadkii 2008 caado ugu fiiray way markii aad shabaab ogolaateen aad noqotid tababar nooceeda lidisay xageesa lidisay tababar uu siiyay asaga qaybtaan wuxuu ii baray biskoolada loo rido inkastoo dhinaciisa aad tahay qaybta biskoolada oo lagu barayaa wuxuu lagu tababaray aska magaalada maartay kalkayo biskoolada si loo rido noo baray jeeri biskoolada si loo rido baraa maxaa kale biskoolada ay tababar ku qaadeen biskoolada caadiga maartay liiraad maartay bijinta iteteeda kuwaasoo noo dhigi jiray kaas u tagu leeyahay markii labaad adigu marka dhowr bari aan baasho waday man labaad waxa dhalo meel loo saaray dhagax maar budal loo saaray asar loo ufan dhalma ku dhistay okay way tabarka uga qabtay intee muddo tababarka adigu u booto toonbir meelaas bacasku toonbir aska marka aan meesh aska aadayna waxa iska dhigeen dad baa mariyo masuux hore rutooray ma taas wax ka baxno marka meelaha mariyo oo shaqada meel u socdaan waxaan moodiyaan dad biloon ciyaareen moodiyaan oo mashquulin dadka aan mashquulin xabadaha maalmii dambe ahayd maalmii hore si loo qalqaad si loo soo gashto si qofka loo diliyo oo qaabka loo diliyo buuna baray inta kiiloomitir oo tirsanaysa intee kiiloomitir baa lagu talagalay adigu qofku markaad darabto inuu dhowr qof tihiin oo gacantooda adigu aad leedahay gacanta qofka inuu gacantaada ku dhinto waxa u tirsanaysaa adigu mitro kale ama inta aad ijiddo kale maarta waa u tirsanaysaa meesha rabtid ama gadaal ama horay mar walba meeshu kaga caddeeyeen marba soo meel meerada fadhi u imaanaysaa mood oo dadka inaad wax gaarsiisa lama rabo sida keliya kala laabxayd baa la rabaa hadduu weysay meesha waxaa jira wiidaya jira isaga qofka galmaan intaad hoosha galin koor waa niman wiidaa loo diriyaa meesha wiidaasa waxa uu soo jeekimay mu soo jeekimo okay wuu leeyahay hadduu hoosha qabsan ka dhan buu leeyahay kadib anaa hoosha qabsan jirin marka tababarka waxa ku qaatay tababarka iskooltii loo rido tiimkeena anaga tiim leader waxaan loo ahaa nin la yiraahdo Faisal kujis loo yaqaano ambaliyo ma tiim leader loo ahaa amiirkeena waa Jerry amiirka Jerry ka weyn inuu malbuha laakiin isku kala ka sareeyo ma garan karo way ragga tiimka yaa xilligaas shabaab kula noqday xilligaas kujis iyo Salman iyo Ibrahim Sidow iyo iyaga gadaal baayeen frank gadaal baayeen inta baad nimankan kawaan leeyahay inta badan isma noqon okay yaa hokay leeyahay qofka jeemka qofka biskool ku soo dilo soo wadno jeeru kan jirto biskool inta ka soo waxa kale oo maartay kawaan leeyahay ciyaalku dib u yimid ciyaalka marka anaga cuslaana ma garanaysaa ciyaalka waxa loo keenay in anaga dilaan ku jeer anaga naga taquluso kadib ciyaalku u shaqaysto أنا مثلاً يا استهوا بيلجي أنت بمحضر لو كويس نيلي راس سلمان كويس أصلا قروا تيم لير بيجي كويس واضح نك تيم كلير مكاهبين كهوش العادي نك تيم لير كا بكويس كويس سسبيل ممكن أدري ولا فيلم كويس هو الفل أرجع بقى الفل لكن سأمر كهبين بوستاتن رعت إنه تيم لير نويه هذا هبين كي وكلا مردارة تيم لير بنوها كيلي جوري سلف راسنا تيم لير بنوها ويدي tababarkan halkaas aan ugu gudbaynaa waxaad iiga warantaa ninka galqacyada tahay sax waalidka iyo familka iyo walaalaha iyo aabaha iyo asxaabta galqacyadka wali qof ka shaqeeyay jira ilaa shaabta ma jirin hadii laga shaqeeyo mar soo qoolna suma familkeena kulli all qof ka shaqeeyo حتى يجي كده وقولوا كل شيء والله إنه مرة هوري لما تبغي هوري عيش بدريم كذا كده قف قوري كده قف قوري دلني هذا ما حصلته هذا ما حصلته لكن سوى سيدا قف قوري حسب اللي كذا سوق مقالة اللي قاعد تسوي دلني قف قوري حسب اللي وحسب الرعمة كده وين يقف كمرك الودري ولا معنا ولي ما يو
hebel soo dil lagu dhigay markii aad dil geysataan oo guriga ku soo laabatay maxaa dareemaysaa loo dil kuwa kaliyin dil adigu gacantiisa aad leedahay oo markii uu wax soo dishid guriga imaadid hadu loo bari xogaa walba ku qabanaya magaalada maarta socodka isha maarta iska yiraansa laakiin marka loo bari saddex afar bilood maalin dambe caadi loo qabsanaysaa qofka daga caadiga ah la mid tahay laakiin markii qofka la dilo ay cad ka dhigaysatid markaas waxa la yahdilay amirka oo maanta hebel yahdilay leedahay cad ka maqlay suulay waxa shaqada ma suulay mid kale jidhay aan ku yiriniyo markaan aan dilino in jeeri adigu soo amray say ku dareemanaa dadkan aan dilino in dad cad ku yihiin adigu gaar ku ah in kor laga soo amray waxa ku fahmeynaa ku niri suulay waxa ku fahmaysan qof markii la dilo isku markiiba habeenkiiba ama subax kale isku markiiba waa laga jawaabayaa qolada kortiga Facebook la soo dhigaya laakiin si qofka inta qof aan dilay WhatsApp kala soo inkasta aan qoraalka aqoonin dadka waa fahmay marka meher soo fursan maarta qof iska leeyahay telefoon ma wada inta ma telefoon ma qaan jirin qof la leeyahay telefoonka noo galba leeyahay qofka aan wixii dilay waxa iga su'aalaha labada bari oo aad tiri marka qof dilno waa walwali jiray oo guriga kama dhaafi jiray soo bixi ha aabaha oo kale hal maalin ama hooyada ama walaalaha hooyada way sax okay rajana ku soo kordhiya yaa ku soo koriyay eedada aabaha qabo mise eedada aabaha markii ay yareed wax tacadi meel ku jiro oo eedada la ku disho oo ma la ku jiro had عدد ممكن لكن أنا إنسان عالمي كدودرة دينتي وحاسي مارتي عم كيف عم بعرف شو عنا هلا بها marka aad dil geysatay waa guriga timid oo aad walwal gashay asxaabtaada ama dhalinyarada saaxiibadii ama familkaaga qaraabada dadka guriga kula jooga hal qof oo ku yiri maalmaha waa murugsan tahay maxaa ka timid isoo degli jiray aan la raadsan hebel baa la dilay ama hebel baa la dilay ayaga meel ka maqli jiray kadib waxaad ka dhigi jirnay aan waxba ogeyn yaa la dilay la dilay yani sheegay ayaga maqashay سينما مركز سوبر الوعمر. وهذه لقطة جديدة. هذا ممكن ولا مراسل جرين. ممكن ولا مراسل جرين. هي البلد لما وحال مراسل جرين. هذا هو. ويا. ولي مترا وحى كشر الله يضي شقاء انتهى قرطي أما الدل أما هوشان بقى كتشتي ولي مكشر الله يضي. oo ma tirinay oo arinta iyada khalad ba ku jirta wali ma ka qabanaysa lorcher haddana aan kula hadlayo baa ku sheegmayo dawladda billaah wax xiranayo waxa soo qabtay 2020 bal soo qabtay bisha 12aad bal soo qabtay magaalada guriga laga soo qabtay fahanta halkan waxa dareemay jeeri markuu ciyaalkan tiimka u qortay markaan dareemnay inuu anaga ma soo socdaan dareem inkasta usulaanay fahanta xogaa adigu taagtaagan oo meeshii yimid lacagtan inta bal lacagtan ma sii jirin taag baan dareemay in kan anaga noo soo inuu dilo afkiisa kamaan qof adal afdiyo la shaqeeyay ma dareemay inuu soo saas kale u dareemay inuu ani isu saan fahanteeda waan dareemay inuu isu soo waadi dadka la dilay ugu daray saaxab ani guriga iska marka laakiin su'aasha ku weydiiyay waxa weeye wax aad ka qoomaysay استدرى اللي يجي هذا اللي بمجرى قومي قاسي ما كنت بدي أمس كل ده يبسني وتشير وسوق مايو أمس كل ده يبسني قرب هذه متهاو صلاة من يقبل شغال يملام كان هل بكرة وقبل ذي أنت شباب كنت تسمع كهلا يا أو شغال يدلك في الإنسان ولي أنت أبو أغلى يعني دم وبشق يسيسي ما يستري ودخل ده بقصتها واسر تونتر واسر توجه بأسري ما كانوا سند الملاك يستي بأسمي وحان ركاي والموانية حتى إذا أقرنا وجب بالمية المحف أدون كنا سيحرق قليل ومن في مدة بس الموتى مركز أنا قلوبتي ذاك الله يا وعدك لما هو ذا واسكتك مجال اسكتك دور بري لو بريد عبد الله ما صلاه أنا ما عاد لي كيلو صوبعه أنا لو راح أقول شيء يعني وعشان يقدر ما واحد ليست أردل
maanta maaha kadib soo waa ii imowdhaa oo u tagaa hawsha shacaba qabanaysaa waa ninkii shalay ku fikrayay inaan wax dambe aan samayn yaa marka u imaado anigii faraxsan baan arkay oo iskoolta qabsaday ya jeeri amirkeena anigoo faraxsan oo wejiga hore aan ku socday ka bedelan ba ka tagaa marka haddana aan tago dilka fuliyo kadib badna qoomameeyaa argagixisada al-shabaab qaybtooda amniyaadka ee madax jabinta markii ay dhagarta dilal ka samaynayaan waxyaabaha ay ku baxsadaan waxaa ka mid ah buuqa iyo saxmadda bulshada ee xilligaas waxaa taas ka daran aqoon la'aanta ciidamada qaybtood oo fursad u siiya argagixisada dilka geystay in ay baxsadaan iyadoo weliba halka ay wax ku dilayaan ay dhooban yihiin ciidamo kala duwan waxaa taasi ay ku dhacdaa markii dilku uu ka dhaco goob ay ciidamo ka agdhowaayeen ama barkantarool ay ciidamo ku leeyihiin askartu waxay afarta dhinac u ridaan rasaas tirabeel ah oo aan yool iyo taarget midna lahayn taasi waxay sababtaa in shacabka iyo dhagarqabayaashuba ay cararaan deetana la kala garan waayo dhagarqabaha iyo shacabka waa kan arxallaawihii jaahilnimadu biyo dhigtay sahal oo iga warramaya sida lagu soo qabtay oo sheekadaasi ay ku jirto waaya sidee lagu soo qabtay niyow garowa joogaaniga oo ka shaqeynaya xaafadda beer waxaa uu taliyaa xaabsada baabuurtan yarku maartay baqaarada alaabta ku dhamaartay baqaarada maad ku dhow dhismayo oo alaabaha guriga dhisi xaafadaha geysa heereysa wada gabar baad ka lahayd aan u shaqeyn jiray ma fahamtay halkaan waan ka tagay guriga kalka ka tagay halkaas uga tagtay halkaan saan u tagay jeer ma la xiray markii jeer la xiray intaan la xiray ka hor buu yiri howlgal baa fulinaysan ani jeer anigu waxaan loo yeeray gujis howlgal baa la fulinayaa ma fahamtay jeer wuxuu yiri haddii mar ciyaar kala qabtay anaa lagu soo maqan gujiso ciyaarka kulu iyo oo joon gameka la qabtay wuxuu yiri haddii ciyaar kala qabtay inka lawiina ugu weyn buu mood Salman ibn Ajir inka wuxuu yiri haddii ciyaar kala qabtay anaa lagu soo maqan gujiso ada awr timlil lahaa hawshan ada la wareegay lacala haddii aniga la qabto ada la wareegay ayuu yiri jeeri maalin kadib waa la qabtay dilkii la sameyn lahaa uu noo sheegay askariya askarta staff meesha boonta ninka haystay magaciisa ma xasuusto madaxii magaca la jirnay meesha xagee ciyaar soor maarta dadka magaalada la arka dhigta koowaad meesha goomeysta halkaas askar tira badan baa aniga ninka habeenka ay raaci lahaa waan ka haystay iskooladeena baan qaadanay howlgalka baan aadnay marka howlgalka tagnay askari u baahnay inuu qorgi tusaa garab gushtay telefoon buu soo dhacay telefoon buu ka hadlayay meesha goomeysta dadka magaalada bulshada meesha goomeysta maarta geed mid ka baxayo halkaas soo istaagay telefoon ka hadlaya dhadda gadaal baa u yimid xabad waxa ku sii dhac halka madaxa hal xabo iskoolada dad waxa ku jira inaad wax ku shaqo taal raa xabad ku dhuftay askari aad ugu dhacay askar taxbadireed aniga luuqsa ugu beegan maarta goomeysta ugu beegan maarta baan ku qordo meesha marka waxa yaala biyo ku jiray roob marka daay biyo waxa ku jira taayir maqan oo inaas guriga meesha ku yaala in waxa laga baqay biyo baabuurta dhiir ka dhigaan muddo ka dhigaan oo baabuurta lagu dhexdhexan dhagaxda aan muskuulada wada dhex saa ku dhacay biyo gudaheeda markaas waxa ceelsanaya magaxyada liidaa maartay shaamacaan bas ugu soo jeeda askartii waxa badariday iyo nima shacaba way soo cirsaday amaanta abal marka orday askartii shacabka uga hareen ciyaal marka garoon ka soo baxay ima qayna galayeen marka la sheegi karo in ka soo baxay inay galayeen ma sheegi karo bay dawr dhigtaan ciyaal qabta marka wax badan marka milan marka oo dhan wada dhiir baan abbaal marka orday ba anu daalan ciyaal ku ayaan aan kala qaybino inta kala qabaabo meel mugdi ku dhex jiro geediyada agtiisaan ag taaganahay asla biskool ma tuudhaa ba askarti tagtay oo ma askar kale ma ku meesha isku ma kuwa kale ba meesha oo wax raadinaysay ba marka dadka arkay xabad soo furay okay bishii iyo arkay soo furay dadkii mid meel buu yaacay
dadku qaban la iska takaartay ومركز أسكر صدق مالنا العوض أنا هيك ولا والله أسكرت الشعب حبة من الوريدة قف شعب كم الله عنه كدي بس يحفظ قطعة كاسوس بدني وصلنا مقالة سؤالي ماشي اللي هذا أرد رويش دمد الويار طبعا ماشي كيف دمد الوقع لك سود بدقة سقطت تصدق الوقع مش تحت عمود عياري كعبر عياري وضي أفرت عملها كهدي ممكن فيت كذا سمع ما إذا عاد سكشت تلفون من علاقة وت سكشت هي اللي قلت له ما قلت كذا اسمه سوري ما دعوة بالنقطة تبدأ ما تعرف كذا بس ما هذا أنتم ما خمسة شيء ولا بتحرنا كتب كنت ما صلاحي أقول شو هوش كل جوا فلي عتيبي يسودر بس أفرطنا بين السعودية سلام عليكم قال له وصل أفسنا بين السعودية سلمان أنا ودي أوين مكوردي سلمان مكوردي مثلا لو غير كمارتي عيار سوري ولا حمارتي وزارة البيئة لو غير كمارتي كذا كلها لو قص كوردي بس كمان كي ودي بسي حفظت كده بس بدي أقول كوج بس والله أبرز عملها مكان لو شو نعملها هو صوت كراوي بس كنت نعملها سكادين حكول عتي أول قلك استر ما كان حلقة أنا لا أقول كنت كعنت كوبات قف بدله بقول كنت مراه كعنت كوبات بيموت كعنت لوالد نقف جيسته بقول كنت مراه شو عم قول شو أنا واحد عاقل كوما يعني نكى أمير كنا بحرين شيرون بحرين يا ساس لك وراه هيا فلان تبدأ موعي عطيت تريد أن بكرة حسر إنه تمر كير الحرين يا هذا الوصول معي يا سوق عن طريق ارتكته مثلا أقول صاحب سكول ده جاي سكول ده في التكات في جاي أقول كل جسير كل جسير أقول سيكون كاتسين مي العبار مثل اللي ما قام سكول ده ولا صلاح حوالي اللي مدها في أنتي ما حبوش يعني استيبول كنتر مقام ساعة استيبول كنتر مقام ساعة سيبهم باش تدبر كما علم استدبر بتقات كذا أظن ميراث مكان وحيد أفر ساعة ميراث أهل صباحني مع 8 ساعة أو قبل نمو قرب نشوف ما كده نرى يا بودقاب أنا ما أشوفي ألقى 8 ساعة قبل نمو قرب ما أشوفي بوساس ما أشوفي قرب أدوه كتب حوالي باري أنا جا اللي هو صوعين ما كمل أبي صوع أنا شو هذا مكان شوي أدوه عن شو مكاس لو رسول عن شو بيل هذا بيل ما مكاس كان بيل إني ملاصق بتاع هذا صوعين نوريا وصبح أنا مكان قاعد سكور كسب حاجة شغال سوريا هذه قارب رحشة سوريا عسكر بحالك كويس وحسن السي حالة سجالس عسكر بقيتين جرابة وحسن السي عسكر تكون رئيس محوي سأكون أض مع ما حسن سأكون بعكوا يوم بقول حين سهل بقى بهنا جالس عيننا سوراب اللي مسكوري فراك خطأ كله نمنها مسكوري حي قبتنا مكانه ويا فراك خطأ كله هذا مكون عيش أرجع وحسن مسكين قاسم مسكين شكله عسكر تكون دايش markaas rabadaankii horena waxa ku xirnaa alboqod ku xirnaa dawladda ku xirnaa marka dib wali siiday sagur aad ku horo kale leeyihiin balaya oo ku yiri hog hay shaabada lagu soo xirnaa ma qaa marka waxa la soo xirnaa marka wali baaray waxa wali lagu wadi kadib la baaray shaabada yam soo marka dami ma jirin ma waxa siday waxa soo dadka soo baa leeyihiin soo dhaxay oo أوكي. قروا تري. وذلك هذا مش شيء. هذا كان يعمل لنا مودارين. بس كأم شيء. سدح بدي أقفل بالمكان شوي. ما أنت أنا ألعب قاضي ولا ألعب تقولي أوصي ولا. بس كاري قرتني. بولس. حيوتين كاري يلا بروكس. كاري تأوصل قطين سود جيرين. قف كارات ودين كاري كسارين. سود كاري سليكي. هكون يو. قولي ما كنت اسمك سعي الله بلا ساري شنقدي بصار الله أقول نيو
alaabta marka hore guriga aan geeyo kadib waan soo raacayaa ma yadheen adigu waan degay kii askarta watay baan la hadlaa gurniga alaabtan muhiim weeye aniga waan raacayaa wax weeye askarta kula socota qeyb gaari soo sarfan ku weyn walaalta soo kadib oo soo raacaya adoo cabaar bay askarta waa hadleen 3 askari bagaari la soo saaray alaabtan soo rogay kadib saldhigga la geeyay 3 bilood ku xirnaa maalinta afraad qalab khamiiseed wal soo qaad talikan asla soo qabtaa waxa la yiraahdo dambiga inaad rabtin xasab oo dambiga horta niyo qofka dambiga waa galaa waana qataa bal dambiga galay aniga waan qarinay khalaal qoon wax dhibaato ah koronto miyaa lagu dhijiyay waxa dibadda loo kulmay way saaxiibadaadi aad xarakada ka wadsantay shabaab aad wada haydeen cid ma qan garanaysaa way dambiga oo inta ku jira waxa inta ku jira inta meesha joogta xirada siyana oo telefoon oo ani meeshaan ku jira dawladda meesha nin reer Puntland ma Puntland u samaay qof kale oo magaalada dhibaateynaya aan ogahay uu jiro loo wada jiro qoori salaad casr ee nabad gaarin inta fadhiyo helo gooyan qoori baan jirin aan xasuusanay ma jiraan wax dalaal oo masaajid ka geystay ma tukataa ma sha Allah salaad tukataa كانت صلاة كانت شنطة وزاد كذا وأديك إلى تبقى مساجد كل ما تجرح وأنا تكتها سداء سكوك عقرت هذا الصلاة كالصباحي إن قف إسلام ومسلم والصلاة إلهي مركز واجب إلهي سوقته إن حبنا نحكي نعم كل شيء قصني هو قف سود من الولايات المشاهدة كل شيء أما هلا يعني كل شيء مر والله قف قدام تاجن هنا أدو كدلو ديار واحد سأدو كدلو تاجن قف لك عنها لما طفى عنها ما يقف أدو جنب بشرة هذا مكان سلمان رعاو كله كان كل شيء رعاو كله يبين سيدو بوردي لك دقيقة كور لك دقيقة أما اللي ما شرب كله كور لك دقيقة لكن عندها سنين وياه هذا عمام maxaa ku soo waayay kadama qof muslim ah salaad ka soo baxay adoo salaad ka soo baxayna dishid lano aqeeda bas baa ka dhacsanay hadan aqeeda dawladda ka talay ma aaminsan tahay dawladda waxa shaqeeyay isgaalayeen dawladda waxa shaqeeyay gaarayeen ma aaminsan hadda mise marka hore hadda ma aaminsan hada waxaan jirin dawlad lagu sheegay ma jiraan wax aayada quraan daliilo ama ahadiis ama nashiidooyin jeer dhishid jiray way jira laakiin hadda ma xasuusto way jira laakiin shiin lagu jira hadda aniga hadda da iyo aqrisid suurada aayad quraan iyo aqrisid aan gaarin hadda daliil wadisid ma xasuusnay kulli saasa wax maxaa ka aqaanaa ka bartay illa tabarak tuska amma iyo tuska tabarak kaliya inta ka hoosada ay wadisid ma garanay hadda aayad hadiis iimrisid عبالك كدبنا إيمان لا تيجي كومري إيماني سيدو ممر كرام warba waa kan dambeeyay weli ma aragtay qof ku leh dhiigga dadka ayaa maskaxda imidoobeeyay mase maqasho qof inta uu kala garan waayay dadka uu dilay tiro ku qiyaasaya maxay tahay sababta amniyaadka argagixisada al-shabaab ay u yiraahdaan qofka aan dilay ma naqaan magaciisa iyo waxa uu yahay waa kan mar kale sahal manaxihii garashada iyo garaadkaba alla ka arday oo iga waramaya jiriimooyinkii uu ka geystay magaalada Gaalkacyo iyo qaybtii uu ka ahaa dilkan geystay waa dil tira badan aan hadda inkastoo aad maskaxda garaysaa dilkaas waxa iga madoobay dhiig iga madoobay hadda shan qof baxasta shanta qof maxaa ku dooratay shanta qof soo xasuusta qof xasuusta oo reekal kacayaan ku yiri baa ku sheegmay ilaahay wana urtay naftayda ka sheegmay baa ku sheegmay fahant qofkaas waxaan u noqon karaa walaalka in adeerka abtiga adeerka aabaha adigu waarsiga familka ku noqon karaa ugu sheegmay agis qofka marka habeenka kula socotay liirka isaga waxa loo jaqsay oo ogeey hadii lagu sheegay maxaa dhacay tadigu dil hada soo dil dilsa waxa galasa absu galmis waxa galasa naxariis qaw ina ka wada ama bay soo daysa ama markii loo soo dil ina la xatido ligeed kulli xatido raadin
hawshan u socday واي شنت دي الحساس المشرك shan dil xasuusto waa nin la yiraahdo Umar Dheere كو iyo nin la yiraahdo wariye la jiray Cabdullah Silfar عبد السلام Cabdullah Silfar afana هاي nin la yiraahdo Ismaan Gududo اسمه بدون شيء وعبد الله لك شوي Cabdullah la shaqa ninka la socday oo qori watay baan dilay qorigiis waa qaaday waxa ku tuuray meel balbala قلت سبب الفريق مياه Abdullah Fariha هذول ما حد اسمه ninka qoriga wataa qori aka baa هي يعني iyo mujahid gulis ka dambeeya xildhibaan koro la jiray xildhibaan سعيد الله xildhibaan Sicilwal afshan ay ku jiraan abay kadib gabadha soo xasuusnaa insha Allah bilahay dilkii kugu maxadinta badnaan oo ilaa hadda maskaxdaada aan ka goyn maxasuustaa geesid jira waa kee yiraahdo mareer waa maartay Umar Dheere maxaa wuxuu kaaga duwanaa dadka kale ee dilisa kan iyo nin xuska istila dadka magaalada u dhashay waayo ganacsiyaasha magaalada ugu weyn baa haye oo hal qeyr ah wadooyin badan buu sameeyay haye ninkan habeenka daa ogahay inuu asaga yahay ma aadan oo meeshan laga direeyo baa ku diidi lahaa ya aad markaa meesha tagay Ibrahim sidoo kale wuxuu kaaniki marka koobta sidoo ma diigi soo marka baa cunan aad markii lagu diriyo adiga dhani ma aad yaaleedo dinka ama kamood soo dhacay qaabkay inooga sheekay sidii mas'uula ninka mujahid ka sabax ساتكي كمارت البوك مقلة مية هذا معصوتي حالي هذا سلامها أوكي عفوا سلام سام قصة بحي بالي وكانك إيش أنقع كسي من عمري هاك جيسان في لي بس لو إن بالس عثمان يبرسيو أنت بسكولكم غنا ونيك فورت كبر ما قام حرني تبغى تزوج بعد كوسا لا ضحى بقفت كده وعرب bal markaana kaala ii raaca qaar ka mida goobihii uu dilalka ka geystay oo afmeer uu la wadaagaya sidii goobahaasi ay wax uga dhaceen waxaase si wada jira idinkaga raaligelinayaa haddii kaamirada muuqaalka goobuhu ay dhaqdhaqaaq samaynayaan inaad raalli naga ahaataan halkan waa masjidka salaama ee xaafadda horumar ee magaalada gaalkacyo waxaa hadda ka hor lagu dilay allah u naxariistee nin ganacsada ah oo muctarif ka ah bulshada reer gaalkacyo allah u naxariistee Umar Dheere waa tahay sahal hawlgalkaas u dhacay ila wadaag hawlgalka ku dhacay habeen beed jaadka waxa ku jiray jeero ku jiray xilligee baa intee saac magribka laga baxshay waa tahay saas waa soo baxay badaas ugu dhuftay jeero jaad ku jiray aniga Salmaan iyo Limaan Siido wahan yaa sahan kala ahaa jeeri oo jaad waaya gacanta koowaad yaa lahaa gacanta labaadna Salmaan waxba ku ridaa lahaa weedayuhu uu ahaa weedayaha hubiyaha meydkii Ibrahim Siido xagee taagnaa marxuum كبير حرني ما فوري مسوا سوتشي سلام وقع استاغي ها صاحب ابو رفت هي نيكاس wuxuu ahaa ninkii atir waa ka nax marre ثاني xagee uga dhacay inta madaxa waa tahay xabadaha ayaa ku rufday Salmaan Ibrahim Siidona weedayu ahaa hubiyaha meydkii ahaa soo weedaya Ibrahim Siido waa hubiyaha ahaa weedayuhuna wuxuu ahaa Cherry waa tahay waa masaajidka salaam ee xaafadda horumar waxa sidaad maqlayseen lagu dilay allah u naxariistee hadda ka hor nin ganacsada ah sidoo kalena ahaa maarayihii shirkadda biyaha Soomaaliya shirkadda Somtel ee magaalada Gaalkacyo Umar Dheere halkan waa hotelka Daarusalaam ee xeerad Raawish meheradaas waxa la yiraahdaa Shilaabo waxa halkan hadda ka hor lagu dilay allah u naxariistee wariye Silfar haye gacanta ku wadiya lahaa haye xagee ka timaado waa gartay marxuum Silfar xagee buu fadhiyay muxuu sameeyay marka xabada ku dhufanisay telefoonku mashquulsana haye yaa ku weheliyay gacanta la wadiya lahaa okay intee xabba ku dhufatay xagee uga dhufatay okay waa xeerad Raawish hotelka Daarusalaam allah u naxariistee waxa lagu dilay wariye Silfar oo kamid ahaa bahda saxafiyiinta ee magaalada Gaalkacyo oo dad badan heladooda leysay ummadda caruur ogaan kartay adigay saaxiibada maxaa ka codsanay qaraabada dadka aad dadkooda leysay horta niyo nafta ilaahay baa sameystay haddana aan kula hadlayo
كل كان دقناي حطينا نبت كجاريو إلى وقت ورايا ما في لبلا مرة ببعزة طبعا دير نقول أشل بلي لما قاسنا أشجودي بعد ما تيجي الله الله أون حريست أنت اللي متين أنت نور بحط طبقة وسالة أيك عكس السنة دي عفنيا هدي له قصص سواء هدي له قصص هو يفعل رأس بيجي بيجي هذا تعالى سنة اللي قصصه سامع دولة دولة قصص يعني دولة يعني هذا بدأ تضرب هذا مش عم بشيء مثل مريا سنة مسلحات الشهادة الوجه الشهادة هذا لحب الولد بنتشوها ما فهمت هذا واحد عدي مثلا هذا وسكت هذا قف دل جيستي مركو لا يورا قف كم دش إنه ما يرى لا يا سما إنه جوز وجه ده سما ورا قف كم دش ربح الأمور في طاعة سنة عادي يا عمل وقفت عمل am ulir oo balbaad hal ugu dhufto waajida aan dawladda intaas dib ugu arko waan waxaan geystay biga soo saarday ya qoraal iga qoda dawladda bidna cabsi wadsanaya dii cabsi ifinayso hal arrin baan waxaan ku weydiiyo dadka carruurtooda maanta shabaabku ay ku maqan yihiin inay shabaabka ka dhigaan iyo dhalinyarada adigoo kala ah maanta ku fikiraysa in al-shabaab noqoto si dilal u geysato ma jirta wax farriinaad maanta u leeyahay أنا على لانيو هذا عفان قبطان هذا لا عفان بنسي يا إنك هذا كفكر إنه الشباب نقول وإنه قف في الآن وشاكس بحد الدنيا وضمعه هذه لها فرح قال وارد كانوا عم يقول لنا وارد الميسا كورها يا وهي هاي سار عبد الله محمد أدب ما صنتهاي بحرجينا دولة عدالة كيش إن شاء الله intaas ayaan ku ekeenayaa sheekadii dilaa Sahal Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsanaa argagixisada al-shabaab qaybtooda amniyaadka qaybna ka ah dilalkii iyo xasuuqii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo kuwaasoo bilowday 2008 qaybta xigta waxa aan ku soo qaadan doonaa laba nin oo kala ah Idris iyo Salmaan oo Sahal iyo Gujis la group ahaa oo iyaguna ka tirsanaa shabakada horjoogaha u ahaa Faysal Gujis deetana waxaan si toos ah u abaari doonaa oo qaybaha ugu horeeya ku soo qaadan doonaa sidoo kale horjooga Cabdulqaadir Axmed Umal madaxii ka sareeyay atoorihii dilalka Gaalkacyo Jeeri afmeer fashilka argagixisada al-shabaab